garawsan tahay rabitaanka shacabka inuu dhinaca dawladda jiro oo adiga aanay marnaba doonin in dhageystaan aragtida waxaa ficnaanay inaad baarto sababta annaga dadka igala shaqeeya social media warbaahinta igala shaqeeya gaar ahaan social media arrintaas baaritaan ay ku sameeyeen account-nada dadkana dhaliila oo dhan aan baarnay oo gadaal u fiirinay account 2 biri 3 biri ka badan jiro ma jiro adinkuna dabcan falcelin waa sameyseen oo dadkaas oo kale hadii jiraan wada qorateen soo anagu falcelin ma sameeyna mana qorano mana u baahnin annaga waxaan ka qiyaasnaa dadka oo inta postiga share garaysa iyo inta taageerto like dhahdo waad garanaysaa sida social media u shaqeeyo annaga intaas aan ugu filan intana afraadaysadan kama galo waana ku kala farxad badan tahay marka aad loo soo amaano warkaaga iyo marka la soo dhaliyo of course qofka binaadam intay la egta absida aad ka qabto marka in lagu soo weero keligay maaha waxaan cabsi ka qabaa in dadka siyaasiyiinta oo dawladda ka ra'yi duwan oo dhan loo isticmaalo awoodda hay'adda NISA tan iyo waqtigaas oo weerarka lagu soo qaaday lagu xiray waddanka ma ka baxay maya waan joogaa weli ma hubisan warqad ka taalinka maya maan hubin adiga inaad soo hubsaa laga rabaa adaa weliyo madax bannaan laakiin ma adaan safarkii doonayeen oon bixin kuna soo gelin safar mise seen safar u aadaa dadaa layga dilay oo kabrooda lagu aasay oo meydkoodii ayadoon ehelkoodii la tusan aasay ehelay leeyihiin qaraabay leeyihiin dadkaas ani i waardiinayn ani daraadda ayaa loo dilay u dhintaan waa inaan xuquuqdoodii raadiyaan caqabadda ugu weyn ee aad xilligan wajahayso maxay tahay oo dhinaca ah dhinaca caqabadda ugu weyn wajahaya waxay tahay oon ka shakisanahay in la soo isticmaalay kooxda al-shabaab oon isleeyahay dawladda hadda aanan magacaabaynin oo soo isticmaaleen waxyaalaha aan helayo informationada ugu muhiimsan oo helayo oo meelo muhiim aan ka helay oo aad macnihi xogtooda ay u sarreyso waxa waaye inuu jiro weerar aniga dhan ah oo dhinaca al-shabaab ka imaanaya dawladahaas ma sheegay ma xilligeedaan sheegi doonaa haddii aad fursad u hesho inaad la kulanto madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka rabnaa dadka aanan la dooranin ee awoodda lehen ognahay ee madaxtooyada awoodda ku haysta ee influence-ga saameynta leh ee wasiirada kala bedelaya ee taliyaasha kala bedelaya ee hogaamiyaasha xafiiskiisa kuwa maamulaya kala bedelaya ay Soomaaliya og tahay madaxweyne mas'uuliyadda kama dhuuman kartid mas'uuliyadda qaado adaa lagu doortay qof aan la doorin awooddaada ku wareejiyo wixii weerarka ay ka dambeeyay dabcan waxay u muuqataa inay hoos u dhacday heerkii saameyntaada mucaaradnimo ma weerarkii gurigaaga lagu soo qaadiyay adiga iyo xarigii lagu geystaa wax ku dhib dawladdu waxay isku dayday inay xadido iyadoo isticmaalaysa hay'adda nabad sugidda NISA inay xadido kulamada publiga ah ama dadka isugu imaadaan inay aad u xadido isku dayday taasoo ka soo horjeeda dastuurka lagana la xisaabtami doono baarlamaanka markuu soo noqdo